Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabtayda ku xiran Yumna Beauty Channel soo dhawaada. Maanta waxaan idin sidaa maanta bariis oo laga sameeyay ice cubes. Waxaan meeshan ku haysanaa laba qaado oo bariis ah. Waxaan ku soo darinaa laba qaado oo caano ah, laba qaado oo rose water ama biyaha ubaxa sida u taqaaneenba. Waxaan haddana haysanaa aloe vera meeshan ku haysanaa maanta kala dacarta sidaan u aqaano. waxaan ku soo darsanaynaa hal qaado oo buuxda oo kale aan ku darsanaynaa moisturizer waayo aloe vera aad u fiican tahay maad kala qooyaan wajiga ku siinaysaa masha Allah. meeshan waxaan ku haysanaa vitamin C oil aan ku haysanaa meeshan wax yar ayadana aan kaga darsanaynaa qaado hafkeeda ama qaado buuxda jeceshahay aad u darsan kartaa ama saliida haysta ku darsan kartaa. waxaad ku shubanaysaa blender tan yariiska oo heelka iyo waxaas lagu shiitaa ku shiidanaysaa. meeshan waxaan noogu diyaarsanay marka hore coconut milk oo kala qaada noogu diyaarsanay wixii aan soo shiidanaa ku darsanayna. meeshan waxaan ku haystaa jablin ah, liinta aad bay u fiican tahay wajiga waa anti aging ida ku siinaysaa. soo qaadanaysaa caaga oo freezer kor laga gelinayo ama hadii kale ice ka samaysid talaajada meesha kor freezer gelinaysaa. waxaa siinaysaa 2 saacadood ama 3 saacadood oo kala siinaysaa. markuu soo adkaado isku soo laabanayna. asxaabtayda waa isku soo laabanay waa kana 3 saacadood ayaan siinay talaajada kor ayaan gelinay. dhagax ayuu noqday masha Allah tabarakallah saas ayuu noqday. hada ayaa ku gedisanaysaa marka u baahdii hal xabal ay kala soo baxaysaa wajiga ayaad saaranaysaa markasta masha Allah.